macadkan marka wuxuu aasaas u noqon doonaa horumarinta iyo tayeynta luqadaha isaga oo si gaar ahna uga shaqayn doona baahiyaha wasaaradda difaaca isla markaana horumarin doono tayada ciidamada qalabka sida luqadooda iyo aaladda ay u baahan yihiin oo ah luqad si ay u soo qaadaan waxbarashada iyo tababarada dibadda marka ay u baxaan. macadku waxa uu bixin doonaa waxbarasho istiraatiiji ah oo hormuud u noqon doonta baridda luqadaha sida Englishka iyo Carabiga iyo Turkiga kuwaas oo marka horeta fayska koowaad iyo dufcadda koowaad oo lagu bilaabayo macadku uu yahay fayskaas koowaad marka oo dhagax dhiga ah saddexdaas barnaamij oo barnaamij luqadda Ingiriisiga ah barnaamij luqadda Carabiga ah iyo barnaamij oo Turki ah imkaaniyaadka aan haysano ayuuna ka turjumi doonaa hadduu Ilaahay yiraahdo. macadka marka waxaa la qorsheeyay inuu noqdo hay-ad u adeegaysa horumarinta tayeynta xirfadaha luqadaha ee saraakiil xigeenada shaqaalaha wasaaradda iyo baahiyaha jira. wasaaraddan waxaan joogaa muddo dheer ilaa 18 sano waa markii u horeysay oo aan waxbarasho helno oo qiimeyntan aan helno yani 18 sano maanu soo marin macad ama iskool aan ku baran inaan helno ma haddaasna ilaahay baa le ilaahay ka sokoona waxaa le wasiir axmed macalin shaqi hadal dheer kama furno meeshan wasiir ku dhiirashada ku dhiiratay inaad suuro geliso barnaamij waxbarasho oo dadka lagu tababaro waxaan dhihi karaa waa arrin aad iyo aad waxtar u leh oo ka qayb qaadanaysa shaqada keliya mooyaane dhismaha mu'asasaadka dowladda waana tusaale fiican maanta dowladnimadeenna 20 sano jirsatay cunsurka muhiimka ee ka maqan waa in dadka shaqaynaya ay dowladnimadu inay mu'asasaadka dowladda ka shaqaynaya waxa ugu weyn oo la doonayo in la dhisa iyaga ay wax bartaan waa qodob istiraatiiji ah ma aha fan ma aha wax iska bilaaw ma aha shaqaalaha dowladda ama rayid ha ahaadaano ama ciidan ha ahaadaane in wax la baro waa asaas maxaa yeelay mas'uuliyad weyn ay xambaarsan yihiin waxay xambaarsan yihiin mas'uuliyad ilaalinta madax bannaanida dalkan waxay xambaarsan yihiin mas'uuliyadda ilaalinta xuduudaha bad iyo bari iyo hawaba inay ilaaliyaan sidaas darteed waxa wax lagu ilaalin karo dalna lagu noqon karo waa cilmiga ayaa ugu weyn wax walba waxa kaliya ay ummad ku najaxi karto ay ummad ku noqon karto waa cilmiga wasiir marka bilowgan ama rixladan cusub aad bilowday waxaan leeyahay waa rixla mubaaraka ardada waxaan leeyahay inay ku mintidaan fursadaas salaan kadib sharaf weyn ayay noo tahay galabtay inaan halkaan isku nimaano oo wax isaga sheegno shaqada xaruntan luqadaha ee aan isniri waxay soo kordhin doontaa dhalinyaradeenna waxay ku soo kordhin doontaa aqoon waxay ku soo kordhin doontaa inaysan yaxyaxin markay shirarka adduunka tagaan waxay u soo kordhin doontaa inay bartaan luqadaha adduunka ilaan Soomaaliya kuma taal meel isolated adduunkaan la xirannahay adduunkaasaan la xirannahayna afafuu kala leeyahay kuwoodii ugu muhiimsanaa inaan keennay kuwo kalena ay soo socdaan luqadda Turkiga annaga muhiim bay noo tahay yacni Turkiye öğretmenler çok teşekkür ederiz luqadaas waa noo muhiim xiriir weyn ayaanu leenahay dowladda Turkiga intaas waxaa dheer luqadda Carabiga oo ah luqad dastuurkeena ku qoran luqadeena labaad ah Soomaaliga waa luqadda rasmiga ee dalkan luqadda labaad Carabi waa diinteenu ay maaragtay ku soo degtay quraanka kariimka luqadiisa quraanan carabiyan غير ذي عوج
la yidhi iyaduna muhiim bay noo tahay. luqadda ingiriishka kuu yimid, luqadda ingiliishku dee caalamkii oo dhan baa qaatay iyada, marka iyadana laga maarmaan bay noqotay, wixii oo dhan baa ku qoran. arrintaas dadaalkeedana hala muujiyo. waxaan rabaa inaan ka dardaarmo meeshan, fursaddan fursad gurigaada kugu timid weeye. macallin baa kaaga yimid dal shishe, cayaar maahan, ma aan helin fursaddan annaga, la isma siiyo. hooyada iyo aabbaha xitaa kuma siinayaan tan oo kale. fursad waxaa weeye aadan dhex gelayn iskuul ilmo yaryar joogaan, goobtaadii shaqadoo lagaa yaqaanay, adigoo maaragtay darajo leh ama adigoo agaasimaha ama adigoo meel kalea laguma dhex geyn shacab caadiye, xaruntaadii shaqadaa lagu keenay. marka ha laga faa'iidaysto, gaar ahaan ragga saraakiisha iyo saraakiil xigeennada iyo oo sirdoonkeenna iyo maaragtay joog ragga ka shaqeeya oo meel adduunkii oo dhan isugu yimida ciidankeenna caawinayay, aaday muhiim ugu tahay. fursaddaas marka in laga faa'iidaystaan rajaynaynaa. waxaan rabnaa inaysan dhayal idinku gelin, macallimiintan inaysan noqon dad kale oo tiro badan ayaa dibadda inaga soo weydiisanaya oo leh waxaan rabnaa inaan ku soo biirno, laakiin waxaan nahay fursadda marka hore bal gudaha ha laga faa'iidaysto. macallimiinta waa u mahad celinaynaa, macallimiinteenna sharafta leh oo runtii wakhtiga badan ku bixinaya, dul qaadanaya. marka aad iyo aad baa u mahadsantihiin. waxaan ku dadaali doonnaa inaan sii horumarino in laab la keeno, laabka la geliyo maaragtay luqadahoo dhan lagu shubo, oo halkan loo yimaado wiigii mar iyo laba iyo dadka aan joogin inay halkan yimaadaan, oo laabka dhegaysiga iyo ka fududaynaya. qalab iyo kombiyuutarro badan baa halkan lagu rakibay. insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa inaan sii horumarino luqadda talyaaniga oo kale ayay faransiiska iyo sawaaxiliga iyo amxaariga iyo waxoo dhan waa soo socdaan. laakiin hadda waxaan inay saddexdan marka hore aan fariisino oo bal aan aragno dad ka soo qalin jabiyey. marka aad iyo aad baa u mahadsantihiin.